u diyaargarowga afraad ee tirinta dadka iyo guryaha waa waajib saaran muwaadin kasta inuu ka qayb qaato. tirakoobku waa xaqiijinta jiritaankaaga waana sugidda xuquuqdaada adigoon lagaa sadbursanayn adigana aadan sadbursanayn. in lagu sameeyo jid dugsi guri ceel waa in la ogaado tiradaada iyo goobta aad ku nooshahay si lagugu qoondeeyo dhaqaalaha ay tahay in la qaybsado. muwaadin waxa aad maqashay oraahda Itoobiya qaydhiinka ayay wax ku qaybsataa amaba ay ku qaybsatay iyada oo loola jeedo qaybsiga dhaqaalaha iyo awoodaha siyaasadeed ee dalka iyada oo lagu salaynayo tirada ay leedahay qoomiyad kastaaba. qoomiyadda Soomaalidu waa qoomiyadda saddexaad ee ugu badan Itoobiya marka laga tago qoomiyadaha Oromada iyo Axmaarada iyadoo lagu qiyaaso shacabka Itoobiya in ay kor u dhaafayaan 100 milyan oo ruux. saddexdii tirakoob ee hore waxa la aaminsan yahay in deegaanka Soomaalida ayna si buuxda uga wada dhaceen sababo la xiriira nabadgelyo la'aan iyo duruufo siyaasadeed oo jiray awgeed. laakiin maanta muwaadin waxaad haysataa fursad aan hore kuu soo marin ee ku xaqiiji jiritaankaaga tirakoobka soo socda. tirakoobka guryaha iyo dadku waa jiritaankaaga iyo miisaankaaga siyaasadeed. muwaadin ka qaybgalka tirakoobku waa mustaqbalkaaga. muwaadin ka qaybgalka tirakoobku waa mustaqbalkayga waana mustaqbalka carruurteena. hal muwaadin oo aan la tirinin waa tiro ka maqan qoomiyadda Soomaalida. aan dhammaanteen u diyaar garowno tirakoobka dhawaan ka